Maanta waxaan ku hadlayaa af Soomaali. Magacaaga waa Karen. Dadka Soomaalida aad baan oode lahay. Iyagana way ay jecel yihiin. Ha warum ben mahaha hadalkaas. waayahay fakturooyinka badanaa dadka loo soo diro oo lacagaha lagu bixiyo way isku dhow yihiin sida ay maaragtay u qoran yihiin. Hadda waxaa horteeda taala hal fakturo, taas ayaan waxyar warbixin ah ka bixinayaa ama idinka siinayaa waxyar oo macluumaad ah. Okay, waxaynu ka bilaabaynaa waxa la yiraahdo utskrivningsdatum ama waqtiga la qoray fakturisdatum. fakturadan lagu soo diray waqtigii la qoray goormay ahayd. taas ayaan ka bilaabaynaa. taas waxaa marka noo cadeynaysa oon ku ogaan karnaa waa halkan hortiina ah fakturisdatum. waa intaas fakturisdatum waa waqtigii la qoray oo lasoo daabacay warqadan ayaa cadeynaysa taas. waxaa ku xiga marka waxa la yiraahdo fakturis number ama kundi number. waa isku mid badana fakturada numberkeeda ama kundiga qofka macaamiisha la leh shirkadan oo lacagta doonaysa numberka uu gaarka u leeyahay kaas adiga kaliya ayuu gaar ku yahay. waa waxyaabaha lagu ogaan karo in adiga lacagta soo bixisay qeyb ayay ka tahay lagu ogaan karo. inkastoo ay jirto oo dib u sheegi doono waxa la yiraahdo OCR number kaas oo aad muhiim u ah oo aad loogu ogaado qofka lacagta bixiyay. laakiin kundi number iyadana waxa weeye waa lagu gartaa. kundi number waxa weeye waa tan horteena ku qoran. waa kaas kundi numberka wuxuu ka bilaabmaa 7 eber eber 5 marka wuu sii soconaya waa dhowr number. waxaa ku xiga kadib marka waxa la yiraahdo OCR number. waxa weeye kan waxaa lagu gartaa sida hore kugu sheegay bay qofka lacagta bixiyay qofka uu yahay ayaa lagu gartaa. marka OCR numberka marmar hoos buu ku qoran yahay warqada meesha hooseysa marmarna kor buu ku qoran yahay marna kor iyo hoos labada buu ku qoran yahay. hadda warqadan labada buu ku qoran yahay hoos xagga hoosna uu ku qoran yahay xagga sarena uu ku qoran yahay. waa kan OCR numberka. waa halkaa u koreysa OCR number ku qoran tahay oo ka bilaamo 894. kadib waxaa iyadana muhiim ah oo aad u baahan in lagu taxadiro waxa la yiraahdo forvaldadoga. waa waqtiga la bixiyay ama ugu dambeysa oo la bixinayo lacagahan. waqtiga haddii kula dhaafto waxaa dhici karta in lagu diro crowdfunding ama lagu diro waxa la yiraahdo aad gashitay inkaas iyo waxyaabo la mid ah. marka aad baa loogu taxadiraa haddii aad lacagta bixin kareynin waqtigaas waxaa wanaagsan inaad la hadashid oo tirahdid bal xoogaa 5 maalmood ama 10 maalmood igu dara ama deal bitolin waxa la yiraahdo ma u bixin karaayo maartay inaan qayb u bixiyo ma suurtagal karta lacagtan. marka wax yar bay ku darsanayaan iyaga oo xaqooda ah oo qarshaad kale ku darsanayaan. marka waxa la yiraahdo warqada waqtiga loo baahan yahay in la bixiyo oo halkan ku qoran waxa weeye warfalodog. waa taas waxa weeye warqadan hadda waxaa loo baahan yahay ugu dambeyn in la bixiyo 30 Abriil 2014. waqti horena soo gaartay marka intaas fursad baad haysataa. laakiin badanaa waxaa dhacda warqadaha markii la qaato oo faktuurooyinka yimaadaan
qofka asagoo jecelna inuu bixiyo lacagna hayo inuu iska wahasado oo yiraahdo bal hadhowto ama berito ama saad dambe ama waxyaabo noocaas oo kale kadibna uu iska iloobo waxa wanaagsan lacagta markay ku soo gaarto warqad markay ku soo gaartaba inaad ku register gareysid bangigaaga oo taariikhdan aad ku xirtid oo tirahdid taariikhda markay gaarto misalan 27 27 lacagtan hagoodo inaad ku xirtid bangigaaga oo aad u isticmaalaya secret doosaha iyo bangi maxaan ila sheeg webka ay leeyihiin ama page-ku uu leeyahay bangiga okay kadib waxa iyadana muhiim ah meesha lacagtaad ku diraysid waxay noqon kartaa waxa la yiraahdo plus zero ama wuxuu noqon karaa waxa la yiraahdo bank zero labadaba uu noqon karaa badana shirkadaha saas ay isticmaalaan dadka shakhsiyaadka ayaa waxay isticmaalaan waxa la yiraahdo konto markaad overvoting ku sameynaysid qof shakhsi u diraysid marka konto caadi buu isticmaalaa tan laakiin waa bank zero ama plus zero ay isticmaalaan kuwaas marka waxaad ka arki kartaa halka hoose ama halka kore labadaba ay ku qornaan karaan ama meel kaliya ku qornaan karaan hadda waxa idin muuqata waa bank zero waxa weeye 8 eber afar eber bank zero okay inta markaynu marayno waxa muhiim ah marka oo kale oo aad iyo aad in lagu taxadiro u baahan meesha aad u bixinaysid waad heshay bank jiirihii lacagtii kullu ku qortay waxaad hubinaysaa qolada ama shirkadda aad lacagta u diraysid iyo magaceeda inuu isleeyahay marka magaca waa kan xaggaas ku qoran yahay hadda waxa soo yar dhaweeyo waxa ku qoran Telia lacagtan Telia ayay u baxaysaa waadaysaa waad ku bixinaysaa marka lacagta aad bixinaysid marka qiimaheeda waa imisa lacagta aad bixinaysid qiimaheeda waa imisa bilow baa la yiraahdaa marmarna waxay yiraahdaan summa bay yiraahdaan waa lacagtii aad bixinaysay markii la isku daro waa Telia siinaysid ama shirkadii lacagta ku soo dirsatay halkan ay ku qoran tahay waa bilow 384 kron نور ayaa siinaysa 384 kronor ayaa siinaysa iyadana waa calaamaysanayna si aan u ogaano biloobka lacagta la bixinayo waxa laga yaabaa inaan si fiican u arkeenin laakiin muhiimaddu waxay tahay inaynu ka fikirno waxa la yiraahdo scripts datum waa waqti warqada la qoray oo faktuurada la qoray ah iyo faktuura numberka warqada numberkeeda faktuura numberkeeda ama waxay noqon kartaa waxa la yiraahdo kundo number qofka marka macaamiisha la shirkadda numberkiisa OCR-ka oo ah OCR number oo ah sida qofka sida lagu garto ama lagu garan karo in qofka uu lacagta soo bixiyo OCR numberka adiga lagu siinayo oo lacagta ku bixinaysid cid kale lama siinayo adiga kaliya gaar ku yahay marka OCR numberka marka ku qortid macnaheedu waxay tahay lacagtaas qofkaas uu soo bixiyay Vorvalo dog oo ah waqtigii ugu dambeysay oo lagaga baahan yahay lacagta inaad bixisid aysan kula dhaafi karin kadibna biloobka oo ah ama sumaha oo ah lacagta aad bixinaysid inta la eg tahay waxa la yiraahdo plus zero ama bank zero meeshaad ku bixinaysid iyadan waa muhiim kadibna waxa weeye betalning mutogare qofka aad lacagta siinaysid ama shirkadda aad siinaysid magaciisa